ku soo dhawow Somtel shirkadda dadweynaha oo la aasaasay 12 sano ka hor oo ku beegan 2011 shirkaddu waxay hirgelisay in mobile laga isticmaalo internet 2012 dhammaan adeegaas ayaa la gaarsiiyay gobolada 2013 shirkaddu waxay soo kordhisay adeega 4G oo sahlay in mobile-ka xoog looga isticmaalo ama si xawaarihiisu sareyso looga isticmaalo internetka 2014 shirkaddu waxay ka furtay suuqeeda Soomaaliya 2015 shirkaddu waxay aasaastay adeega lacag dirida ee e-dahab 2016 shirkaddu waxay ardayda dugsiyada sare ka soo baxda ee ugu deeqday waxbarasho jaamacadeed oo bilaasha 2017 shirkaddu waxay hirgelisay barnaamijkii ugu weynaa ee shirkadii macaamiisheeda dib wax ugu celiso ee loogu magac daray hadaloo hel 2018 waxaa la furay suuqa saamiyada shirkadda qaybteeda Soomaaliya 2019 shirkaddu waxay soo kordhisay in lacagta shilin Soomaaliya lagu diri karo e-dahab 2020 shirkaddu waxay furtay barnaamijka 5,000 abaalmarinood oo loogu magac daray ku shubo oo guuleyso oo ahaa midkii abid ugu ballaarnaa ee shirkadii macaamiisheeda ku celiso sidoo kale shirkaddu waxay keentay fiber optiga magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso 2021 waxay shirkaddu haatan daafurtay suuqa saamiyada ee Somaliland haddaba macaamiisheeda maanta noqonaysana milkiilayaasheeda bari waxaan u sheegaynaa noocyada iyo tafaasiisha shareska ama saamiyada shirkadda Somtel. Somtel saamiyada ay iibinayso waa nooca loo yaqaano common shares ama saamiyada asaasiga ah. Tirada guud oo shirkadda Somtel iibinayso waa 80,000 share. Qiimaha uu yeelanayaa saamigii waa $100. Qiimaha asaasiga ah waxaa intaa raaci doona $20 oo khidmad ah. Qiimaha guud ee saamigii wuxuu noqonayaa $120. haddaba tusaale ahaan haddii qofku uu iibsanayo 50 saami wuxuu noqonayaa qiimaheeda asaasiga ahi $5,000. qiimaheeda guud oo lagu daray khidmaduna wuxuu noqonayaa $6,000. haddaba macmiil soo dhawow oo noqo mulkiile. saamilaha cusub waxa laga yaabaa in isweydiiyo halkii saami waa $100 waxa dul socda $20 oo khidmad ah. maxay tahay $20 khidmadii? $20 khidmadii waxa weeye waa kharashka socodsiinta hawlaha shareska sida xafiisyada kharashaadka u baahan tahay taabacadaha kharashaadkaas weeye. waxa laga yaabaa inuu isweydiiyo saamilaha cusub haddii uu saamigiisii rabo inuu la baxo lacagta kharashka ah ee khidmadda dheeraadkii miyay u soo noqonaysaa? lacagta kharashkii waxa ku baxday kharashka hawlaha socodsiinta sidaan u sheegnay marka kharashkaas uma soo noqonayo waxa u soo noqonaya laftigii shareska u soo noqonaya. waxa laga yaabaa saamilaha cusub inuu isweydiiyo goormay hawl galaysaa lacagta sharesku ee laga qabtay. lacagta sharesku waxay galaysaa waxa jira waqti fundraising ah ama lacag ururin ah oo 3 bilood gudahooda 3 bilood ee ku xiga laga bilaabo waxa hawlgalaya saamigii laga qabtay. waxa laga yaabaa in saamiluhu isweydiiyo saamigayga cid kale ma ka iibin karaa? saamigaaga cid kale waa ka iibin kartaa. waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad 3 cisho ka hor shirkadda soo ogeysiiso si loo kala wareejiyo saamilaha cusubna loogu wareejiyo saamilihii horena looga soo wareejiyo dokumentigii iyo processkiina loo dhameystiro. waxa laga yaabaa inuu isweydiiyo saamilaha cusubi lacagtayda ma la bixi karaa? lacagtaada waa la bixi kartaa. laba arrimood waa ku furan yihiin inaad saamigaagii qof kale ka iibiso oo sida aad lacagtaadii kula baxdo iyo in aad saamigii shirkadda ay ku celiso lacagtii adiga oo soo ogeysiinaya 3 cisho ka hor. waxaana la bixi kartaa haday shirkadda noqoto 12 bilood gudahood 12 bilood markay dhamaadaan ee xisaab xirka la sameeyo
ayaa waxa lagu celinayaa lacagtaadii adigoo 30 cisho ka horna soo ogeysiinaya. waxaa kaloo ku raaci doona wixii faa'iido ay waqtigaas shirkadu samaysay. waxaa laga yaabaa inuu isweydiiyo saamilaha cusubi shirkadu faa'iidada aan ka heli doonaa lacagta aan gashaday waa intee. shirkadda faa'iidada waxay ku xiran tahay shirkadda performance-geega markay 12 bilood lacagtaas shaqayso xisaabta la xidho wixii shirkadda markaa ay faa'iiday ayaa wax loogu dhufanayaa saamigii uu gashaday. marka waxay ku xiran tahay shirkadda performance-geega shirkadda hore way u furtay shareska wax ka furtay South Soomaaliya 2018 oo dadku ay sanadkii horeeyay lacag heleen. markii labaad sanadkii labaad oo 19 ana lacagtii ay heleen liblaabki ayay heleen. marka insha Allah waxay noqonaysaa faa'iidaduna inay ku xidhnaato performance-ga shirkadda. shirkadduna waa shirkad faa'iido samaysa hadda oo qofku wixii uu ku darsado uu mar walba wax ka helayo. laakiin cabirka iyo rate inta uu ka helaya waxay ku xiran tahay shirkaddu markay 12 bilood shaqayso inta uu muxuu ahaayay ay ka hesho. waxaa laga yaabaa inuu isweydiiyo saami iibsaduhu goorma la qaybinayaa oo xisaabta la xidhayaa oo wixii saamigii uu gashaday uu ka helayaa wixii ay shirkad u shaqeeyay saamigiisu. saami iibsaduhu waxa uu helayaa oo xisaabta la xidhayaa 12 bilood gudahood sanad xisaab xidhka. faa'iido iibsaduhu wuxuu faa'iidada loo ogeysiinayaa oo loo qaybinayaa 12 bilood gudahood oo normally waxay xisaabta xirantaa 31 bisha ayuu muxuu ahaayay xisaabtiisii heli doonaa. waxaa laga yaabaa inuu isweydiiyo saami iibsaduhu maxaa shuruudo ah oo ku xiran in uu sheeka galo. shuruudaha sheeka ku xiran qof kasta oo saami iibsanaya oo saamiga uu yar ha ahaada ka ugu badan ha ahaadee shuruuduhu waa isku mid. waxaa laga yaabaa inuu isweydiiyo saami iibsaduhu maxaa shuruudo ku xiran inaan saamiga Somtel aan iibsado. saamiga Somtel qof kasta oo iibsanaya waxaa looga baahan yahay inuu la yimaado baasaboorkiisa ID ama wax la mid ah oo hay'adaha sharciga ka soo baxay oo magaciisa iyo sawirkiisa ku dhajisan yahay. wax kaloo looga baahan yahay 2 sawir oo loogu dhajin doono foomkiisa heshiiska iyo foomka codsiga. wax kaloo looga baahan yahay inuu muxuu ahaayay la yimaado informationka kale iyo macluumaadka kale ee looga baahan yahay sida ehelkiisa haddii lacagtaas mustaqbalka loo baahdo in cid lagala xiriiro oo isagiiba ay mataqaanay la waayo ama mataqaan cid lagala xiriir lahaa cid dhaxalka yeelan lahayd ama cid contactiga noqonaysa. saami iibsaduhu waxa laga yaabaa inuu isweydiiyo xageen ka helayaa oo aan ka iibsan karaa saamiga. saami iibsaduhu wuxuu ka iibsan karaa dhammaan xarumaha dahabshiil ee adduunyada oo dhan ku kala yaala hadday tahay Yurub, America, hadday tahay Asia iyo wadamada Middle East, Africa, meelaha ay ku taala dahabshiil oo dhan shareska Somtel Somaliland waa ku diyaar iyo Somtel Soomaaliya iyo Somtel Puntland labadaba saddexdaba. waxaa kaloo ka helayaa waddanka gudihiisa meel kasta oo xarunta Somtel ay ku leedahay wuxuu ka heli doonaa macluumaadkii iyo codsigii application formkii. waxaa kaloo ka heli doonaa xarumaha dahabshiil ee waddanka gudihiisa meel kasta oo ay ku yaalaan magaalooyinka waaweyn iyo kuwa magaalooyinka dhexe ku yaala intaba oo uu ka heli doono applicationkii uu soo buuxinayo processkii oo dhan uu ka soo bilaabi karo. saamiluhu marka uu ku qanco macluumaadka ee uu si fiican u akhriyo uu fahmo waxa uu ku shubi karaa akawnada loo qoondeeyay dahabshiil xawaalada iyo dahabshiil banka ama e-dahab. markuu ku shubo uu rasiidkii soo qaato wuxuu imanayaa xaruntii markaa uu ka process garaystay applicationkii uu buuxinayaa wax loo diyaarinaya heshiiskii waxaana loo diyaarin doonaa shahaadadii. sidaas ayuu ku noqonayaa qofku owner oo kaga mid noqonayaa saamilayaasha Somtel.